السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أصحابتا ku xiran Hudira Designer soo dhawaada alaabo cusub Pakistan design badan sida u jeedaan daahayadan waxaa la dhahaa Pakistan hadda designadooda way badan yihiin waxaa jiro kuwa kale oo ayagoo kala badan ay leeyihiin hadda kana u jeedaan waa blue waxaa lagu buufiyay cream designadu way badan yihiin asxaabteena sharafta leh soo dhawaada insha Allah taala wholesale iyo retail inta waa ku bixinaa alaabta soo jeedin waa Lafanguji designadu way tira badan yihiin hadda iyo hadal laguma soo koobi karo marka asxaabteena sharafta badan soo dhawaada jumlada tafaariiqinta waa ku bixinaa fadlan haddaa ka hesho subscribe saar like share comment hanaga baqina soo dhawaada asxaabteena sharafta leh haddii hore noola joogtane daawasho wanaagsan commentiga iyo like iyo shareta naga baqiilin marka soo dhawaada designada insha Allah taala way fara badan yihiin waa 20 minute daawasho wanaagsan waa adiga iyo kobsha soo qaado nasoo hor fadhiiso si fiican noogu sheekay na daawo nalana wadaag haddii wixii commenti oo aad ka qabto haddii aad leedahay waxba ku soo kordhi kartaa nagu soo kordhi walaalkeen ayaa tahay fikirkaagu waa noo muhiim soo dhawaada insha Allah taala designadu aad u tira badan yihiin caawa meesha lagu soo koobi karo hal iyo laba ma ahan waa Lafanguji blue love me la qararac love me and you are my love designadu tirada ay ka bateen hadal iyo waxa la yiraahdo dadka xabad ma daqsan kartaa laakiin hadal waa daqsan kartaa laakiin hadalka saas oo badan ma baqaan baa liga hadal badan oo malaynaa dad badan oo igo aftahansanaya joogo marka soo dhawaada asxaabteena insha Allah taala wax badan ayaa isla arki doonaa waxa ku jiro dressyo daahyo go'yo saakooyin oo cashada lagu geeyo alaabi bacd al-cashaa la xiranayay yaa marka asxaabta soo dhawaada soo yaaca nala fiirsada ha degdegiin wax badan oo aad ka bogato insha Allah ayaa meesha ka buuxo product badan waa soo wadna insha Allah taala duu ilaahay ku idmahayo marka asxaabteena sharafta leh soo dhawaada insha Allah taala eegmadu waa lacag laan qaadashadu waa qiimo jaban qosolku waa free waxa idin qaadan qasamaha pixel waa soo wadna insha Allah taala in the next week ama isbuuca xigo waxaan wadnaa qiimo jabintii ugu dambeysay insha Allah taala in next week maxaan leeyahay adigu maanta wixii ka dambeeyo waaye designaduna tirada ka bateen marka soo dhawaada insha Allah taala fadlan hadii aad ka heshay subscribe like share commenti hanaga baqiilina soo dhawaada inta dambe hada 20 daqiiqo ma hadli kare daawasho wanaagsan asxaabta waa idinka yahay sawirada tirada badan oo meesha ku soo aruurshay daawasho wanaagsan fadlan aga xiisa dhicin soo dhaw insha Allah haddii aad u baahataan number nagala soo xiriirtiin numberka waa kaasa +254714219993 ama +254112 markaas ama 2524 hal todoba meesha laga dhigi jira afar hal waaye hal 2 ama 2515143 waa 01 haddii Nairobi joogto 12515143 waaye haddii si kale aan ugu dhigno waa eber hal laba afar hal astaghfirullah eber hal laba shan hal afar saddex waa af Soomaali marka soo dhawaada insha Allah haddii aad daawasho sawir badan u baahataan insha Allah taala TikTok-geena waa ka fiiri kartaa waxa ku qoran Hudira Designer sida Facebook-geena asna waxa ku qoran Hudira Designer YouTube-ka ay haddana la joogtaan waa asna waxa ku qoran Hudira Designer marka asxaabta daawasho wanaagsan waana iska warhayna insha Allah dressyaduna waa qiimo jaban insha Allah taala price isku madagaalayno waan isu keenaysin sawiradoodana insha Allah taala website-ka www.hudiradesigner.com ayaa soo dhigi doona insha Allah inkastoo wili wax badan oo dhiman yihiin marka soo dhawaada insha Allah taala asxaabteena sharafta leh daawasho wanaagsan goodbye maca salaam waa macnaheeda ila liqaa carabta lagu dhahaa ingiriiska goodbye waaye Kiswahili kuwa hereeni mafahanteen Kenya waa wada ka saayaan laakiin dadka foreign-ka kuwa heeri waa maca salaam inkastoo Soomaalidu ay wada tahay heer Nairobi waxaan umaleynaa Soomaali qurbo ma aadaan Nairobi soo marin wuu yar yahay hadduu soo jirane
Nairobi waa centralka maxaa la sheeg Afrikaanteena ama Soomaalideena marka soo dhawaada sabal maca salaamana waa sii baxna daawasho wanaagsan weydo wax uun bixi ikhwaani sadaqada cajaa'ibteeda waxaa ka mid ah oo markaad maqashid aad naftaadu waxay damcaysaa wax kastood heshay inaad bixiso xaqiiqatan wayna mudan tahay qofka wuxuu sadaqaysto wax ka badan baa ilaahay ugu bedelaa $1 haddaad bixiso $10 baa ilaahay kugu bedelaa xaqiiqo wey waxaa daliil u ah caaisha radiallahu canha gabadha muslimka bal dhegayso waa ummulmu'miniin waa qofka aad rabto ayadoo kale inaad noqoto oo jannada la gasho maalmaha ka mid ah iyadoo sooman oo gurigeeda ay yaalaan 2 xabo oo khubus ah waa 2 xabo oo canjeela ama jabaati ama rooti oo taqaanaan ayaa miskiin baa guriga kusoo garaacay gabar khaadimadoo la joogtay bay tii albaabkii uu fur waayo way furtay sayta waa miskiin sayta xabad si hal bay siisay xoogaa kadib baa qof kale oo miskiin u soo garaacay saytiri waayo sayta waa miskiin kale sayta xabadka kale si sayta yaa ummul-mu'miniin maalin walba waxaad haysato dhan intaad bixiso yaa hadhowna waxaad weedaa waxaad ku afurto waxaad ku afuraysaa sayta adu iska daayay si xabadkii bay qaada way siisay xoogaa kadib ayaa qof kale albaabka soo gargaraacay bal fiiri ma miskiin kala haddii miskiin kale maxaa la siin oo saddexaad albaabka taagan gabadhii baa albaabka furtay waxaa taagan nin adoon ah oo wuxuu wadaa dabaq saxan weyn oo neef ari ah oo waxaa dul saaran hilibkiisa la shiilay barbecue anagu naqaanaa isaga dhan la solay oo rooti dusha ka saaran yahay tiro badan markaasuu wuxuu yidhi ehelkayga reerkaygii baa waxay igu dhaheen ummulmu'miniina ugee ha ku afurta ee waa hadiyad markii gabadhii ay soo qaaday caaisha intay qosashay waxay tidhi cun waa khubzun khayru min khubziki waa khubus ka khayr badan khumuskaagiiyo cun ilaahay agtiisu ka yimid ilahay baa soo diray tabaaraka wa tacaala fadligaa fiir bal cajiiba waa caaisha labaday haysatay bay bixisay intaas oo rooti iyo hilib baa loogu bedelay haddaad dhibaata ku haysato ama faqri ku hayo ama waxyaalaan ku haysato caaisha ku day waxaad haysatid bixi wax ka badan baa ilaahay ku siin waxyaabaha sadaqadu samaysa waxaa ka mid a waa mas'alo aan isleeyahay wallaahi maanta dad badan oo muslimiin aha u baahan daawu mardaakum bisadaqa qofka jiran sadaqa ku daaweeya weligaa xadiidka nabiga intaad maqashay sala allahu alay wasalam isagoo qof kaa jiran yahay ma u qasaday inaad ku daaweysid sadaqo sida nebigu sala allahu alay wasalam waxaa dhacday imaamu alxaakim abu cabdillahi alxaakim qisooyinkan sheegaya inta badan qofka raba wuxuu ka akhrisan karaa kitaab la yidhaha min cajaa'ib sadaqa oo cajiib ah oo sadaqada si cajiib uga sheekaynaya imaamu abu cabdillahi alxaakim ayaa jiraday wejigaa waxaa ka soo baxay boogo marka isbitaal dhakhtar buu u tegay wax kastuu sameeyey daawaa loo waayay maalmaha ka mid a isagoo darsi akrinaya wejigala dhacaamaya oo sheekha dhibaata ka haysato ayaa waxaa arkay wuxuu soo galay masaajid abu cuthmaan asaabuuni uu darsi ka akrinaya sheekha caqiidada caanka ku ahaa kutubka caqiida iyo firaq bidaca in lala dagaalamo markuu soo galaybu wuxuu yidhi imaam abu cuthmaan asaabuuni baa wuxuu yidhi u duceeya imaamu abu cabdillahi alxaakim inuu ilaahay caafiyo dadka waxay dhaheen ilahay ha caafiyo isagoo subaxii dambe darsi xadiida sheekhii akrinaya ayaa waraaq baa hortiisa lagu soo tuuray waraaqdiibuu furay waxaa ku qoran gabar baa waxay dhahaysaa muslima xalay baa waxaan ku riyooday nebiga sala allahu alay wasalam riyaan ku arkay cajiib markaasuu nebigu wuxuu igu yidhi waxaad ku tiraahdaa abu cabdillaahi alxaakim waxaad ku dhahdaa yuwasic ilmaaa lilmuslimiin muslimiinta biyaha siiyo biyaha sadaqaysto sheekha darsigii buu dhameeyey markuu dhameeyey ayuu kacay gurigiisa derbigiisu wuxuu ka qoday barkad intuu niman xamaaliyaala u yeelay biyaa lagu shubay dariskiibaa ka cabay wallaahi 7 beri kadib boogihii way dhamaadeen way baaba'een cajiib wey maanta qofka muslimka waxaa haysta kansar waxaa haysta xanuun waxaa haysta dhiigkar waxaa ku haya xanuun kasta diabetic sonkor baa ku haysa xanuun kastaa ku haya xanuun ma ku hayaa xadiidka nebiga intaad aamintid daawo mardaakum bisadaqa bal fiiriba sadaqa baxso bixi ilaahay isagoo daaweeye baad arki doontaa way dhacday marar badan bay dhacday qisooyin xadiid ah baa dhacay oo hadda waktigan la joogaa waxaa dhacday qiso cajiib ah 2 cunug oo yaryar oo walaalaha ciyaaraya ayaa mid ka mida dhirta isha waxaa ka galay qori waxbaa ku jabay isha way dhacaamaysaa waxbaa ku jira
dhakhaatiirtii loo geeyey oo dhan way ka baqeen isha meesha madow wey dhakhtar kasta wuxuu leeyahay anuu cajiib ma taaban karo waa khatar ishaan haddaan taabto isha wuu beelayaa cunug hooyadii way iska oyday way dhibaatootay cunugii ma seexan karo indhihii biyaha ka da-aya maalintii dambe waxay maqashay nabiga sala allahu alay slam xadiidkiisa daa-u mardaakum bisadaqa ma nabigaa yidhi sala allahu alay slam arrinkaa waa inaan fiiriyo sadaqay bixisa sadaqa weyn bay bixisa waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan check up dhakhtar geeyey dhakhtar baa wuxuu igu yiri bay tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroobeynaya inaan qabo markaasuu markuu wisitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay wixii oo cadba furduq ka soo yidha banaanka ku soo dhacay allahu akbar markaasuu dhakhtarkii wuxuu yidhi wixii way soo baxeen gabadhii waxay qalbigeeda ku jirta daawu mardaakum bisadaqa nabiga sal allah alay slam cajiib weeye ka faa'iidayso akhi jiraa ku haysta dhib baa ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nebiguna baray sala allahu alay wasalam waa caafimaad cibaado ah ka faa'iidayso isku day samee waad ku caafimaadtaa insha allahu tacaala haddaad ku caafimaadi weydid xoogaa iimaankaagaa hooseeye eh intaad iimaanka xoojiso ood aamintid xadiidka nebiga samee waad ku daawoobaysaa xaqiiqo wey arrinkaas arrin kaloo cajiib ah oo sadaqadu leedahay waxaa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan carruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirkaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jiro degdega musiibooyinkaa tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaabaa yaab kale waxaa ka mida moxamed ibnu wadaax raximahullah waa nin culimadii hore oo muslimiinta caanka ayd ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo darsi xadiida akrinaya oo fadhiya ayaa waxaa usoo galay nin ordayy markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayey beerta taayirada waaweyn oo loo ujido oo lagu falayo ayaa ku dul dhacay sheekhii wuu fikiray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ahaa kitaabka akrinaya wuxuu yidhi wad darsiga sii wad wiilka darsiguu iska waday sheekhu iska aamusay waxba ma dhihin qof haddee la yidhi ilmahaagii baa balaaya ku dhacday oon kicin oon isbedelin oon qiiroonin oo aan ooyin oon nixin ka war darsigii markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso moxamed ibnu wadaaxow wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay waxba ma gaarin maradiisii unbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiyaa wuxuu yidhi awalaan yaabayey awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya markaad hadda idhahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqa baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu lbalaaya sadaqadu balaayooyinkay celisaa marka wuxuu waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahamsanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaankaa fiir akhay haddaad sadaqa baxsato ood maanta wax sadaqaysato musiiba kuma dhacaysa dhibaata kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahay qiso kale a idinku daraya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimkaa inuu baldareemo fadliga ay sadaqadu leedahay on daawo ka raadin kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekha ayaa wuxuu qoray wuxuu yihi anoo meel nin macalimiinta ka mid oon ku kalsoonah wuxuu ii sheegay buui anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yihi waxaa ii yimid cunug yaroo ordaya oo miskiin ah markaasuu yaa cam adeero waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax un isii aan khubus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawaarmaan ku gadanaya 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey 5 riyaal baa intuu aad u farxay buu la orday buu wuxuu ku galay makhaayad buu galay wuxuu anoo cunugii weli ka fakeray cunugii maskaxiisu ku jira ayaa wuxuu yihi waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi asla kiraysanay wadamada muslimiin taxi waa la soo sheer garaya markaan xoogaa soconay ninkii taxi laha baa i caayay nin adiga nin xun baa tahay adoo kale ma qaaday iga deg taxiga nin aniga maxaad iga rabtaa oo nin khabiis baa tahay nin xun baa tahay waa isdagaalay waxaan iri waayo lacagteeda ii celi waa kaa harayaay lacagtii wuu ii soo celiyey waan soo qaatay waa soo lugeeyey meeshaan taxiga ka soo raacnay baa nimid anagu wuxuu xanaaqsan oo isdejinayaan meeshii imid baabuur kale aan soo raacay wallaahi wuxuu yidhi markaan xoogaa kadib soconnay ayaa waxaan u nimid baabuurkii oo intuu gadoomay oo uu gubtay
afartii iyo darawalkii shantiiba ku dhinteen waxaan fahmay buu yidhi sadaqadaydii baa iga soo saartay iga reebtay musiibadaas akhi waxaad xasuusataa maanta waxbaad sadaqaysanaysaa aduu ma ogid waxaad dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadid musiibo carruurta inaad kaga badbaadid jirro xun inaad kaga badbaadid dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaadid waa security way waxaan hadda la yidhahdaa life insuransiga oo la geli dadku galaan way waa insurance way waxaad noqonaysaa qof ilaahay uu xifdiyey waxaan kusoo khatimayaa kelimadan hadduu qofku wax haysto ama uu xili karo oo wixii uu ku bakhaylo ilaan sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda geliya wuu imtixaamaya dadku qaar baa lacag haysta mid baa wax yar haysta mid baa wax badan haysta qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo hadduu bixin waaya maxaa dhacaysa waxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilahi wuxuu yidhi wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku bedelan qolo idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay habeenkii ugu horreysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad u faraxsan waa habeenkii la yidhaahdo innagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa habeenkaygii oo habeenkii aad ku lahayd nolosha wey oo faraxsan ayaa albaabka la miskiin kusoo gargaraacay gabadhiibaa xagga albaabka xigta way istaagtay oo waxay tiri waa ayo suuye qof miskiin oo tuugsana wey wax siiya markaasay tiri waa miskiin tuugsanaya suuye baxdhe cayri saacadaan oo kale iyo albaabada laisku soo garaaca marqaankiibaa ilowsiyey iyo farxaddii wax walba gabadhi waxay tiri niho orod naga tag wax ma kusiinayna bax naga tag ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax ninkii waa iska tegay isagoo aad u niyad jabsan waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen muddaa waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo hameen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo gargaraacay barkii say way istaagtay way soo noqotay waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya markaasuu yidhi maasha allah ma miskiin baa caawa noo yimid ma ilaahay baaba dadkii naga soo doortay ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan sii lacag buu soo wixi lacagtaana ugu dar maxaan kuu qabaa naad u baahan tahay de nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeersaday ayaa gabadhii waxaa la rabaa inay farxdo soo maa iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii wuu fiiriyey wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysaa walaalay kugu dhacdo ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninkii miskiinka albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray waxaana ilaahay ku ciqaabay yaan u malaynayaa hameen baa isaga oo saan oo kale ila cashaynaya ayaa miskiin albaabka soo garaacay markaasuu si xun ula hadlay ninkii waan isfuray wuuna waashay miskiinkiina hameenka si xun buu u cayriyey ninkii qabay gabadha ayaa ooyey isaguna wuu ilmeeyey markaasay tii adigana maxaa kugu dhacay si waxaan la ooyayaa ninka hameenkaas tuugsanayo albaabka gargaraacayay anigu ahaa fiir kanaa reerka qabay sadaqadii buu diiday maalkiibuu ku bakhaylay waa la waalay reerkiibuu ka tegey mid kale oo sadaqaysta kiibaa yaa fiicnaaday oo wax helay oo degay ilaahay dejiyey naagti baa ilaahay u guuriyey wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum akhi ukhti walaalka muslimkaa gabadha muslimadda ah haddii maanta ilaahay shilin ku siiyey oo ilaahay wax ku siiyey oo aad shaqaysatid oo aad wax heli kartid waxaa jira dad badan oo baahan oo masaakiin waxaa jira hadda masaajidda way baahan yihiin dadkii ehelku way baahan yihiin meel walba baahi baa ka jirta wax sadaqayso sadaqana waxaa ugu fadli badan midda la siiyo sadaqa jaariya ku sadaqayso wax kasoo awoodi baxso insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu aniga iyo idinka sadaqadana jeclaysiiyo ilaahayna sadaqadaa baxsanay inuu ilaahay usan naga dayicin wixii kurba iyo dhibna haysana ilahay inuu nagaga faydo wasala allahuma calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasallam